dadka ka hinaasay waxaa ka mid ahaa nin jaarka ama deriska Socrates ahaa oo deganaa gurigiisa guriga ku xiga dhakhtarna ahaa. wuxuu arkay magaca la siiyay Socrates inuu tusaale u yahay sida uu ugu guuldareystay dhakhtarnimada oo cilmiga caafimaadna aan waxba ka aqoon. dawada ku soo dhawaada barnaamijkeena caawa waxaa barnaamijkeena marti noogu ah filosoofkii dhakhtarkii xigmaawigii Socrates wuxuu ahaa filosoof, dhakhtar iyo nin aad u xikmad badan oo u dhashay dalka Greega. wuxuu ahaa dhakhtar bunni ah, heerka uu cilmiga dhakhtarnimada ka gaadhayna ay ku cadeynayso in boqorka xilliga dalka Greega xukumayay uu siiyay magaca dhakhtarka koowaad ee wadanka Greega. dhakhtaro badan oo xilliga deganaa wadanka Greega ayaa ka xumaaday magaca dhakhtarka koowaad ee la siiyay Socrates. waxay bilaabeen in ay ka hadlaan oo ka hinaasaan ama ay ka masiraan magaca la siiyay Socrates. dadka ka hinaasay waxaa ka mid ahaa nin jaarkiisa ama deriska Socrates ahaa oo deganaa gurigiisa guriga ku xiga dhakhtarna ahaa. wuxuu arkay magaca la siiyay Socrates inuu tusaale u yahay sida uu ugu guuldareystay dhakhtarnimada oo cilmiga caafimaadna aan waxba ka aqoonin. taasi waxay sababtay inuu maalin u tago boqorkii dalka, wuxuuna ku yidhi, maxaa Socrates magaca dhakhtarka koowaad ee wadanka u siisay iyagoo ay dalka joogaan tiro ka aqoon badan isaga? boqorkiiba wuxuu yidhi, bal Socrates igu yeera. markii loogu yeeray Socrates wuxuu ku yidhi boqorkii, ninkan jaarkaaga ama deriskaaga ah wuxuu sheegay in aadan u qalmin magaca aan kuu bixiyay oo ay jiraan dhakhtaro fara badan oo ka cilmi badan kana aqoon badan oo isagu ka mid yahay. magaca aan ku siiyayna ay u qalmaan iyaga. Socrates baa wuxuu yidhi, xalka aniga ayaa haya. waxaadna siisaa 40 casho, anigu waxaan diyaarsanayaa sun khatar ah, isaguna ha diyaarso sun aad khatar oo ah. sunta waxaan u diyaarsanayaa dawo aan kaga bogsado sunta uu isaga ii diyaarinayo, isaguna ha samaysto dawo uu kaga bogsado sunta aan aniga u diyaarinayo. markaa kadib qof walba ha cabo sunta midba midka kale uu u soo sameeyay, kadibna ha ka daba cabo dawada uu mid walba uu soo diyaarsaday. midka aan dhiman waa qofka u qalma inuu noqdo dhakhtarka koowaad ee wadanka Greega. boqorkii ayaa fikradan ka helay oo yidhi dabadeed ku dhaqaaqa. Socrates markuu gurigiisa tegay wuxuu u yeedhay 2 nin oo xoog waaweyn, wuxuu siiyay lacag, wuxuuna ku yidhi, dusuudan ama degsiyadan waaweyn ee biyaha ka buuxa waa in aad tuntaan qoryo habeen kasta muddo 40 cisho ah. waana ay sameeyeen sidii la faray. ninkii jaarka ama deriska Socrates ahaa muddo 40 cisho ah ayuu maqlayaa dhawaaqa waxa weyn ee habeen walba la tumayo ama la garaacayo. aad ayuu u baqay. uu moodi jiray dhirta habeen walba la tumayo in lagu sameynayo suntii isaga lagu dili lahaa. markii 40 cisho dhamaatay ayuu Socrates u yimid boqorkii isagoo oo sida suntii uu u diyaariyay dhakhtarka kale iyo dawadii uu kaga bogsan lahaa sunta uu u soo sameynayo dhakhtarka kale. ninkii kale isagoo wata inta in leeg ayuu yimid. Socrates baa bilaabay. wuxuu cabay suntii ninkii jaarka ahaa uu u soo sameeyay, kadibna wuxuu ka daba cabay dawadii uu isaga soo samaystay. dhakhtarkii kale ayaa isna cabay sunta Socrates uu u soo sameeyay, kadibna wuxuu ka daba cabay dawadii uu isagu soo samaystay. markuu sidaa u cabay ayuu dhulka ku dhacay, dhakhtarkii kalena wuu dhintay. boqorkii baa yaabay oo weydiiyay Socrates sunta halista ah ee uu siiyay ninkan. Socrates baa intuu u qoslay yidhi, anigu wax sun ah ma siin ninkan waxa aan siiyay koob biyo ah, kaasoo uu ka daba cabay dawo. wuxuu kale uu yidhi, ninkan cabsi ayuu u dhintay, wadnaha la istaagay, maadaama aan muddo 40 cisho ah dhirtii la garaacayay uu moodayay in lagu sameynayo suntii lagu dili lahaa isaga. haddaba noloshu waa sidaas oo kale, adiga ayaa isdili kara ka hor geeridaada. daawada waxaad ka fahantay sheekadan hoos nagu reeb. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawa.